madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa habeenkii xalay tole kormeerkadiisa ku tagay cisbitaalka guud ee Hargeysa waxaana uu kormeerkiisan madaxweynaha ku booqday waararka ay jiifaan waxaana kormeerkan ku wehelinayay madaxweynaha taliyaha ciidanka booliiska Somaliland Sareeye Guuta Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Somaliland Cabdikariin Axmed Xinif ergeyga gaarka ah ee wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya Marwe Adna Aadan Ismaaciil gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Maxamuud Yuusuf Muuse madaxweynaha ayaa qof isu dul taagay bukaanka isagoo halkaasi ku xal wareystay isla markaasna u sheegay in ujeedadiisu tahay in ogaado sida looga shaqeeyo bukaanka jiifa waxaana uu halkaasi uga duceeyay dhammaanba dadkii xanuunsanayay oo Ilaahay uga baryay madaxweynuhu inuu xanuunka ka dulqaado caafimaad taam ahna ugu bedelo dhanka kale waxa uu madaxweynaha Somaliland kormeerkiisan ku tagay qaybta ay wax ku bartaan ardayda jaamacadda Hargeysa ee barta caafimaadka waxaana uu halkaasi kula kulmay macallimiin ajaanib ah oo kuwaas oo ka soo jeeda wadanka Turkiga isla markaasna tababar dhanka qalliinka siinaya ardayda jaamacadda Hargeysa barta caafimaadka madaxweynaha ayaa dhaqaatiirtaasi uga mahad celiyay dadaalka iyo tacabka ay ardayda galiyeen sidoo kalena waxa uu ardayda kula dardaarmay in ay wax badan ka faa'iideystaan khabiirada caafimaadka ee wax u dhiga waqtigoodana geliyay dalka Caawil Cabdiraxiin Geese Caawil Burcaawi VOS News qasriga madaxtooyada Somaliland magaalada Hargeysa